maalintu maalmaha way ka tilmaanayd Liverpool way liinbaxaysaa mar kale aakhiru lacibkii ayaa lagaga cararay oo loogu shubo loogu dhameeyo la dafsiiyay Liverpool 2-0 ayay ka soo laabteen laakiin tabashadii ugu dambeysay ee ciyaarta ayaa 3 dhibcood xoog looga qaatay Bournemouth xilli ciyaareedkan waa markii ugu horeysay oo ay ka badiyaan koox ku jirta 10ka sare ee horyaalka dhinaca kale Liverpool waxay mar kale ku fashilantay inay samayso waxyaabaha asaasiga ah ee difaacashada kubadaha dhintay ee set pieceska daqiiqadii ugu dambeeyay waa isla sheekadii hore ee sanadkan oo dhan ku baranay kooxda Liverpool kubad haysasho badan balse aan wax faa'iido aan lahayn shantii kulan ee ugu dambeysay Liverpool waxba kuma sayixin way dhibtoonaysaa dhakada Islot ee timihu ka daateen aqliyad maaha mid ay uga daateen bisay la haba sheegin oo dabkaba lama saarin dheeri dabka la saaraa bisay laga sugaaye alla yaa raxmaya raaximeen Totnes Balatazione Bournemouth ayaanu leenahay Vitality Stadium weli waa caqabad Liverpool hortaala mar kale 2026 libinta iska daaye xataa weli way ku liinbaxayaan sidii limbabeeladii oo kale iyo liin macaantii oo waaba kuwa qac laga siinayo aakhiru lacibka haddaad maqli jirtay dhaka jabiyahay dhiib markan waa koobka liintaydi marka 9ka siriga la apuufo Liverpool halis ayay daaqaysaa haddaad maqli jirtay ciin bay daaqday isbeeq Messi jeedado siliyad rooxe anagu waxba kama qaban karno hadday beerihii basaatiin iyagu noqdeen Bournemouth waa kooxda dhibcaha ugu badan iska lumisay xilli ciyaareedkan iyadoo hoggaanka haysa wadar ahaan 18 dhibcood ayay lumiyeen markay ciyaarta ku gacan sareeyaan waana rikoodhka ugu xun kooxaha Premier League oo dhan hadda Liverpool ayay 2-1 ku hogaaminayeen mar kale ma laga daba iman doonaa ayuu xaalku isweydiinaha waana laga daba yimi balse mar kale ayay iyagu buuriga ku tufeen kooxdii Liverpool ahayd haddii kooxdii laga daba iman jiray abaaya macmiilka ahay markani Liverpool ay buuriga ku tuftay maxaa u yaala Virgil van Dijk waa u hadlay afya labadii daana waa u yeedhay khalad ayuu ahaa goolku ayuu yidhi isagoo qowdhamaya garsooruhu wuu iska indha tiray Van Dijk oo si cadhale uga hadlay guuldarrada kooxdiisa ka soo gaadhay Bournemouth waxaan garoonka dhexdiisa ka dareemay waxay ahayd in si cad lay hor istaagay garsooraha iyo faar midna ma bixin go'aankaas ayuu yidhi Van Dijk inkastoo uu ka xumaa go'aanka haddana wuxuu qirtay inaysan waxba ka bedeli karin waa inaan aqbalaa waxaan halkan istaagi karnaa oon dhihi karaa goolkaasi ma ahayn in la ogolaado laakiin waa la ogolaaday xaaladdu waa sidaas goolka Amin Adli ayaa soo afjiray rikoodhkii guuldarro la'aanta Liverpool oo socday 13 kulan oo xidhiidh ah guuldaradan ayaa dhabarjab ku ah dadaalka Liverpool ee ku aadan tartanka horyaalka iyo xaqiijinta booska 4 sare maadaama dhibcahoodu ay ku istaageen 36 dhibcood oo gamba lagu soo ururinayo maadaama Ibrahim Kanouté ka maqnaa difaaca sababo qoys aawadeed Van Dijk ayaa wehelo ah Gomez waxaana muuqatay in difaaca Liverpool uu dhibaato kala kulmay kubadaha rogaal celiska iyo karoosyada kooxda Bournemouth maalin ay ballaqnayd bay ahayd Alisson gacmihiisa ganjeelka fadeexad kagala baxsaday bay ahayd tani waxay ku tusinaysaa liinbaxa Liverpool ee 2026 Islot isna waa u hadlay Van Dijk ayuuna difaacay isagoo sheegay inaanay cadaalad ahayn in dusha laga saaro eedii goolka koowaad ee Bournemouth macalinka ayaa tilmaamay inay dabaysha ay saameyn weyn ku lahayd habsami socodka ciyaarta taasna qayb ka ahayd sababta keentay in goolkaasi dhasho waadeer sidii beeri basaatiin buu iska daaqdaaqayo tiigsimaad yaroo jilicsan oo kii hablaha gashaantiyaha sidoodii uu lugta u tiigsadee ninkan faruhu baradha ku sitaa ma lagu hedha tamaandhaxbuub ku miisaya eeyarunbaa laga sii gingimay waana la weydaartay waana laga adeegtay isagoo xaya Van Dijk haba yacbuha bustoqoyani saarnaa maalintan maalmaha ka tilmaaman iyaga isdhigay daraygan sidoo kale Liverpool 12 shoot bay ku tuurtay kooxda Bournemouth 5 ayayna ku aadisay halka 14 ay tuurtay Liverpool ay 4 ku aadisay kubadaysashadu waa 333 dhibcood lagaga qaatay halka ay 67% ka yihiin Liverpool 294 baas oo Bournemouth samaysay 225 baas ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday 615 baas oo Liverpool samaysay 530 baas ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday taakaladu waa Bournemouth waa u xalaal istaadinta iyo isqubinta iyo sasaydinta iyo istaadintu oo waa 23 halka ay 12 ka tahay Liverpool faawladu waa garba siman waa 7 koornayaashu waa 3 Bournemouth iyo 11 kooxda Liverpool
oo saddexdii dhibcoodna habeenkani lagala hoyday aan ooye albaabkay xidha gabal baas miyuu dhacay ayuu xaalku taagan yahay waxay islahaayeen maxamadaysatee laakiin waa laga maxamadaystay waana laga adeegtay sorry reer Liverpool ayaanu leenahay Anthony Semenyo iyo Man City waa wax kale 4 ciyaar 3 gool iyo hal caawin fahamta calayay shay kullu kalaam bilaabashadiisa City wax kale ayay u ahayd maalin kale oo maalmaha ka tilmaaman ayay City isku qaateen dhibaatadii toddobaadkii hore iyo murugadii iyo ilintii filosoofka iyo weliba curadadiisa ceelasha saliidda bariga dhexe laga masruufa way ka meedheen Wolves ayayna harageeda ku tukadeen maalintan maalmaha ka tilmaaman maalin isbedel lagu arkay Pep Guardiola ku dhicistiisa leh oo filosoofka maalmihii uu isqali jiray loo badinayay markay bilaabatay laakiin uu yiri tiijirka bilaatinta ee timihiisa ku waayay aqliyad muhiimtisnimo iyo cabqarinimo ay ku dhisan tahay waaniga anigoo gambadhka u dhiganaya kuwii toddobaadkii hore ay cunay ee shadaadintu inay mar kale madfaca biyo ku shubaan maalintan City gelin horeba way karsatay Semenyona shabaga uu ku tuurtay halan oo kaydka ku soo bilowday Ferdinand isna sidoo kale kursiga kaydka bunka ku cabaya waynu aragnay kulankooda markaynu si gaar ah isu dul taagno 11 shuuday City tuurtay aparayay ku aadisay halka 11 iyaduna tuurtay kooxda Wolves halka ay halku aadisay kubadaysashada sidii caadada ahayd waa 460 kooxda City iyo 36 Wolves 630 baas oo xaraga 547 baas ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday 343 baas oo Wolves samaysay kulanka 267 baas ayaa halkii loogu talagalay ku dhamaaday taakaladu waa 14 iyo 19 16 foul iyo 14 foul kornayaashu waa laba dheeri oo City laba ayaa la dheeraa oo 6 bay heshay kooxda Wolves maalmaha kale way uga tilmaanayd iyaduna kooxda Citizens wayna soo durkeen oo gabadhkoodu waxa uu yaalaa iyo waliba taasadoodii caana booduhu kulanka kooxda Arsenal iyo shadaadinta kulamadii kale dhacayeen dul istaagno iyadana Burnley iyo kooxda Tottenham way isku riiqmeen boqnahana way isqabteen wayna isla degeen 2 iyo 2 garba siman ayay ku kala baxeen sidoo kale kooxda Bayern Munich maalintan harageeda ayaa lagu tukaday 2-1 waa lagu garaacay waana kulankii koowaad oo ay losti sameeyaan ama dhibcaha ay lumiyaan sidoo kale faaduma saarooyinkii wadanka Spain Super Cup-ihi ayay ciyaareen finalkiisii oo Real Madrid axankeeda iyo agaskeeda ayaa faaduma saarooyinkoodii iyo cawooyinkoodiiba la qaaday maalintan maalmaha ka tilmaaman 24 January 2 ayaa loo dhiibay 11 January-na ragooda ayaa axankooda iyo agaskooda la qaado 3 iyo 2 Super Cup-ah lagaga qaaday Allah la kala guranog la kala goosanog laguna kala guulayso faaduma saarooyinku mid bay dheeriyeen ragga oo kuwa Barca weeye 5 Super Cup ee la dhigay 5 iyaga dareeriyay koobkan abaaya macmiil ayay ka yihiin oo meher baa ugu xidhanba nin kale looma raadinayo koobkan unba loo dhigaya kadibna halkaasay meherkooda iyo gabaatigooda calayha ku kala qaadanayaan Real Madrid sidoo kale habeenkan iyadu way maxamadaysatay Villarreal ayay harageeda ku takatay 2-0 kaga badisay Mbappe labadaba isaga ugu shubay isaguna 20 gool ayuu marayay inankani waa wax kale waxba lagama qaban karo yaa cagaha goynaya hadaba yaa sehe ciryaaminaya lama garanayo waa uu xanfaraya wuu kuugu shubaya ka dhalinaya kuma saamaxayo hadduu kubadda xariijinta 18aad ku helo Tottenham Balatazione ayaan leenahay Real Madrid ninkii Arbiola ahaa kulankii saddexaad ayuu laylinaya Monaco 6 ku soo garaacay Liverpool 2 ku garaacay Villarreal bariiqdii ugu dambeysay oo la sida waxani waa wax kale isaguna wuu wacdareynaya waa macallin kale oo soo baxay qaaradda Yurub oo isaguna waxina baraya xubintii waa kariskiya kala haadintii anu waxana ay tirika intaynu midda xigta aynu ku kulmi doono cidiis balaqda aynu soo karsan doono kala haadin doono inaguna ka axmadaysan doono inta ka horeysa yaan lagu karsanahay isbalaqid sida yaamaana Allah